qaadaan arrinta kufsiga dumarka la kufsado midi wax weeyaan in uu ninku ama raggu ay kufsadaan dumarka iyagoo marka aan hub isticmaalin oo aan hub yani wax weeyaan hubku noocu dooni ha ahaado saan u tegi doono haddii uun muxuu ahaayey xoog kaliya si kale ay iyagoon xoog yani aan hub u isticmaalin marka ay ku kufsadaan mas'aladaasi culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa waajibaya xadka zinada ee shareecadu u dejisay gabadhana waxaa u laasimaya dhibaatadii gaadhay in laga xaalmariyo oo meher bay yeelanaysaa sida ay qabaan alimaamu shaafici imaamu maalik iyo alimaam axmed ibnu xambal xanaabilada madhabka culimmadu u badan yihiin baa sidaasa gabadhii dhibkii gaadhayna in laga xaalmariyo oo meher la siiyo dhibkii la gaadhayna muxuu gaadhayna xuquuqdeeda la bixiyo ninkii dhibkaa ku sameeyey ama rag badan hadday yihiinna markaasi xadka shareecada la mariyo oo haddii guur u horreeyeyna dhagax lagu dilo haddii uusan guur u horrayninna 100 jeedal in markaa lagu dhufto raggiina in halkaa la mariyo miskiinta la qasbay ee la kufsadayna in markaasi sidaa loo xalmariyo waa haddii falkaasi aan hub loo isticmaalin oo aan hadidaad iyo cagajuglayn iyo hub iyo haddaan loo isticmaalin xukunku sidaasuu noqonaya haddiise kufsiga loo isticmaalay hub loo isticmaalo oo maalan waxa weeyaan xooggaasi uu la socday in hub loogu cagajugleeyo hubkaasi siday culimmadu u badan yihiin xataa ul ha noqdo xataa dhagax ha noqdo sida uu qabo imaamu shaafici maalik xanaabilada abu yuusuf iyo abu thawr iyo ibnu xasmi culimo badani siday qabaan waxay leeyihiin xaaladaasi markaa zino way ka koraysaa oo keliyata kufsi uun la zinaystay ma ahee markaa waxay noqonaysaa masalada la yidhaahdo xiraabadana waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu amniga khalkhal geliyo jidgooyo sameeyo uu noqdo ruux mujtamacii iyo deganaanshihii iyo nabaddiisii iyo isu socodkiisii iyo xoolihiisii iyo khatar geliya kaasuu markaa noqonayaa gaar ahaan marka uu muxuu ahaayey dhaawac iyo dhib la yimaado arrintaasi marka waxa way ka gedisan tahayoo waxay markaa gelaysaa aayadda qur-aanka ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi ddunyaa walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim xiraabaa la yidhaahdaayo waa dadka jidgooyada sameeya waa dadka booba waa dadka muxuu ahaayey nabadgelyadii amniga khalkhal geliya waa dadka xoog iyo hubka dumarka ku kufsada dadka noocaasoo kale ama magaalo gudaheeda ha ku jireed ama bannaanka ha uga baxsanaadeene kuwaasi muxaaribiin baa la yidhaahdaaye xukumkii zinada xugum ka khatarsan bay leeyihiin oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaasi abaalkoodu waxa weeyaan horta waxaa laga dhigay ilaah iyo rasuulkiisay horta la dagaalamayaan li'anna waxa weeyaan tacaaliimtii diinta ilaahay soo dejiyeyna dagaal bay ku sameeyeen ummaddii tacaaliimtaa haysatay oo muslimka ahaydna dagaal bay ku sameeyeen sidaas daraaddeed allah iyo rasuulkiisay la dagaalameen dhulkana fasaad bay ka shaqaynayaan oo gabdhihii sharafta lahaa iyo hablihii qiimaha lahaa iyo xoolihii iyo nabadgeliyadii iyo naftii bay khatar ku hayaan sidaas daraaddeed dhulkiina fasaad bay ka shaqaynayaan oo wadaan dadka noocaasoo kale ah alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala abaalkoodu waa in la laayo in la deldelo in la googooyo gacmahoodiiyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo in muxuu ahay dhulka laga masaafuriyo oo la nafiyo taasi waa abaalka ay adduunka ku leeyihiin aakharana cadaabu weyn bay leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala